السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي سيتهين ما في عنتهين حارجينا هنا في عنتهين أنا كان سيدو كلوا في عنها الحمد لله. دور بري أنا مقنع أديك كدواد أسبوعي حوجها كدب ما أنت صونا بضلابته الحمد لله. وإسكدري مكرتان طبعا كده بفضل لجيسة إيو مهمة أوليه إن لقى فائديسته مركا الحمد لله ما أنت صولابتي مركا halkan maanta waxaan ku haynaa rootiinkeeni iyo isku diyaarintii ciida alxamdulillaah. marka maadaama la iidayo hadee guriga asagana waa in la ciidsiimo oo si fiican si xoogan loo nadiifiyo. marka nimankaana u yeertay kambanigan maanta hirgab xuna ahay cafwan. marka nimankaana u yeertay kambanigana ii hagaajinayay kuraastoo dhanaa la ii dhaqaayay. marka waxaan ku dhekaal iska arag aad u fiican yihiin nimankaan si wax u dhaqaan. marka waa kuwana hadda waa la dhaqay meeshaana la qalajinayaa ninkaasna kursigaas kala weyn oo asagana dhaqayaa. meeshaan waa kuwan hadda kuwan waa la diyaariyay waxaa la rabaa ninkaas wuxuu sii wato waxaa waaye wax lagu qalajinayo in la qalajiyo waaye oo ayagoo xoogaha yara qalalan ay ka tagaan. kadib waa kana galabkii la dhaqay subaxeedii waaye ayagoo soo qalalay oo sidaas quruxda badan kusoo baxay maanta. marka meeshaan shaqo badanaa sugayso kow iyo kala barma joognaan ku dhahay. marka waa kana hadda sidaanay kusoo baxeen aan ku dhahay ayaga dhan cadaana laga dhigay asalkoodii loo celiyay. kadib waxaan rabaa guriga in daahiyada iyo roogyada laga wada bedelo. rooga cagaarka ee fadhiga iska leh midkaas kaloo gareega ee qolka ilmaha midkan brownka ee qolka jiifka daahiyadii barkimaha inaan bedelo waayo mid walba barkin naasibaysa la geliyo. wixii hore oo dhan waxaan ku dhahay in la kala firaariyo waayo oo la kala bixiyo. marka waa isla arki doonaa si kusoo baxaan insha Allah waa soo duubi doonaa biidnillaah. marka kadib halkaanan jikadeeda soo galay waa waqtiga afurka la karin lahaa soo ma aha. meeshaanan chicken baan maxaa la dhahaa wax soo marmariyay adiga xilligan hal saac kadib oo fridge intaan geliyay dhinaca barafka ma ahna dhinaca kale isku soo huureen wixii dhan isa soo dhaxgaleen. waa kana haddan ovenka rabaa inaan geliyo ee si fiican u soo karaan. marka hore hoosaan u shidaaya markay 20 daqiiqo camal hoos i shidnaataa haddana kor iyo hoosaan u shidaaya 20 daqiiqo kale 40 daqiiqo kadib diyaar buu noqonayaa. halkan haddana isla weelkii baan waxaan kusoo shubanaynaa chicken oo jir waxaan rabnaa iyadana inaan rooti ka sameyno oo qudaarta la geliyo. waa kana caraftii kii hore kasoo haray baan kusoo daray waa sinjibiil iyo toon iyo daaniyo iyo nacnaac iyo maxaa la dhahayo masaalayaashii oo dhan caraftii oo dhan isku soo daray. asagana cabaara meel ku huurinaya oo meel soo yara dhigaya. kadib asagana waxaan ku darsaneynaa. kadib hadda waa kana afurkeena waa diyaar maadaama shaqada igu badneed maanta kama gaarin wax walba inaan idin soo duubo. marka cuntadii oo diyaaran soo duubo rootiga aan kariyo xataa waa ka gaari waa inaan idin soo duubo iyo chickenkii marka hilibkii iyo bariiskii iyo macmacaankii yaraan ugu talagalnay in afka lagu maceysado. waa kana marka saanay diyaar ku yihiin maanta shaqada waa badan tahan ku irwaa maalintii soon ugu dambeysay ilaahay acmaashana naga aqbalo. adinkana waxaa in leeyahay ciid mubaarak oo hormarsan. kadib meeshaana markii ilmaha la soo seexiyay afurka iska soo kariyay oo isleeyahay xilligan waa kugu munaasab inaad wixii aad qabsan lahayd aad qabsato. baan rabaa meeshaan inaan macmacaanka ciida kusoo sameysto. marka halkan waxaa noo yaala 3 xabo ukun koob sonkor koob saliid 2 koob iyo bar bur iyo baking powder noo yaalo. marka meeshaana waxaan kusoo shubanaynaa ukuntii 3 xabo ahayd. waa kana marka haddaan ana ukuntii 3 xabo meesha kusoo shubtay kadib waa isku soo qaraacaya si fiican adiga ugu yaraan waa inaad 3 daqiiqo si fiican isku dhexgelisid ukunta sida uu qastid waxay ku xiran tahay sidii uu burkaagu u jilci lahaa hadhow ama wixii aad karsato. kadib markuu saa isku soo dhexgeliyay kadib waxaan kusoo shubayaa sonkor koob sonkor aan kusoo shubay haddana sonkorti iyo waxaan soo dhexgelinayaa ukunti ilaa ay isku milmaan oo dareero fiican ay noqdaan. marka hadda waa kana anagoo saan isku soo dhexgelinay markaasaan isku soo dhexgelino oo ogaado inay si fiican isku soo dhexgaleen. kadib waxaan sameynaynaa maxaan kaloo kusoo dareynaa Allahu musta'aan koobkeen saliida ahaa oo halkaas noo yaalay. koobka markuu mooda daray wax yaran ka reebaya laakiin aan macno lahayn. haddana sidii oo kale waa isku soo qaraaceynaa si fiican isku soo dhexgelina waa ukunta iyo sonkorta iyo saliidii marka isku dareysid markasto waa inaad si fiican isku dhexgelisid. hadda marka waa kana waa noo diyaar. waxaa kaloo kusoo darsanaynaa heylkeyga waxaan kusoo darsaday adiga 2 qaada camal
haddii aad heli rabin waxaa isticmaali kartaa vanilla ama carfiso. waa kana hadda marka sidaan waa noo diyaar, kaaliska aragaan ku iri. kadib markuu hadda saan diyaar u yahay waxaan soo qaadanaynaa burkeeni. burki baan xig ugu soo dareynaa, kulli kuma soo dareysid, marba xoogaha ku shubeysaa, hal mar haddaa ku wada dirtid uu kaa adkaanayaa. marka waa kana hadda anagoo burki marba xig kusoo dareyno, marka hore gacantan ku walaaqayaa, ma rabo inaan mashiinta geliyo firfiraarkiisa. sida kalena haddaa u fiirsa gacanta ka fiican qaado ama bahasha kaloo loogu talagalo haddaad isticmaaleysid, ma ani midi kale ma haysanin. kadib waa kana hadda markaa cabaar joogaba xig kalaan kusoo darayaa ilaa meeshii aan ka rabay uu kasoo gaarayo. marka hadda markaan kusoo daro haddana waa kusoo darayaa, kaaliska aragaan ku iri. haddadaan marka waa diyaar. 2 koob hadda waxaan kusoo daray koob iyo bar, koob kala ii hara maadaama wixii aan isticmaalaya aan rabay inaan ku darsado dhan ee ahayd 2 koob iyo bar. marka sidaan aan kusoo wadeena processka ilaa iyo meeshii aan rabnay uu kasoo gaarayo. marka aniga waxaan rabaa inaan macmacaanka dhan guriga ku sameysto, laakiin xalwada waan soo gadanaya insha Allah. xalwada shaqo adag waa in la qabto, marka waxaa ka fudud hadii wixii dhan awada karinaysid xalwada kala banaanka soo gada. hadii aad jeceshiin guriga ku sameysatid guriga ku sameyso. marka waa kana hadda sidii aan ka rabay xoogaha waa usoo dhow yahay, inkastoo wili jilicsan yahay, burkina qaar kasii dhiman yahay oo intii kaloo ka harta inaan kusoo daro ee noqoto. kadib markaan hadda saan u isticmaalo oon saan u sameeyo, wili waa jilaac zaaid ee mashiintii soo qaadanaya, mashiintii si fiican isku soo dhexgelinaya. markaan mashiinta si fiican isku soo dhexgeliyo kadib haddana intii kale oo iga dhinneed baan soo gelinaya. markay saan tahay in haddana isku qaraacdid waxay kaa caawinaysaa inuu jilco uu hadhow bahalkaaga bahal kala daadanayo adag uuna noqonin. kadib intii u dambeysay ii harta waa kana sidoo kale waan kusoo daray. marka saana ugu soo wadeynaa bitartiib ilaa iyo meesha rabna uu ka gaaray. hadda marka gacantan soo dhaqday, gacantan soo geliyay, waxaan rabaa inaan si fiican u soo xasho oo sidii aan ka rabay uu ii noqdo. marka waa isla arki doonaa siduu ku soo baxo. waa kana hadda anoo gacanta ku soo xashaayo, wili waxaa moodaa inuu iga jilicsan yahay. burka loo yar baan soo qaadeynaa, sidoo kale ku soo dareynaa. marka haddadaan waxaan ku iri wax yar kadib wuxuu noqonayaa diyaar. waxaan ku iri wax ugu fudud oo la qabto waxaa waaye biskud inaad dubtid, laakiin qiyaastaada baa la rabaa markasta inay noqoto qiyaas isku dheeli tiran. kadib waa kana hadda burkeena sidaasuu diyaar kusoo yahay. marka haddadaan waxaan sameyneynaa ovenkii aan soo shitay, waxaan rabaa inaan halkan kusoo diyaariyo sidaa u sameyn lahaa. maxaa la dhahaa mashiintii oo biskudka sharaxaysay waxaa soo qaaday maba ka gaaribo. halkaana waxaan ku iri gacanteedaan kusoo sisimayaa si isla eg markaan si isla eg iskula soo simo. kadib haddana waxaan soo qaadanayaa mididan yar, gacanteedaan ku sharaxayaaba yaaba u baahanbo maxaa la dhahayo bahal soo qaaday geliya, haddana saxanka saar. saan gacanteedaaba iga fudud, 2 daqiiqan jikada uga soo baxaya. marka waa kana hadda marka sidaan ku soo baxaya, qiyaasta waa inaa isla ekaysiisid. kadib halkaan haddana burki intaanan soo reebta kii kale ovenka soo geliyay, intaanan soo kala jaray nus baa waxaan rabaa inaan kusoo daro cocoa powder. kadib markaan kusoo daro oon qeybtaas waxaan rabaa inaan qaxwi kasoo dhigo, si fiican isku soo dhexgelinayaa si ay u noqoto midabka chocolate-ka. nuskii kalaan ka reebana baaquligaas kaloo cadow ku jiraa. marka waa kana hadda waxaa dareemay inuu ku yaryahay. markaa cabaar joogaba xig baan kusoo daraya. markaa cabaar joogaba xig aan kusoo daraa inuu iga bataan dareemay, qaaraan iska celiyey. marka haddana saliid yaraan saas kusoo dhahayaa suu maxaa la dhahayo isku dhexgalo, kalarkana meel walba uu u gaaro, uu u noqdo hal nooc, uu dhinacna cadaan ka noqonin dhinacna qaxwi ka noqon. waa kana marka sidaanu igu soo baxay, lagama sheekeyn karaan ku iri. marka waxaan soo qaadanaynaa weelkan, saliid yaraan soo marinaynaa, kama badinayna saliidda maadaama biskudka aan qasanay uu saliid leeyahay. markaan sidaan saliid usoo wada marino seen yeelaynaa. marka waxaan sameynayaa qeybta qaxwiga ahayd oo chocolate ku ekeyd waxaan kasoo sameynayaa 3 kuus. markaan 3 kuus kusoo sameeyo waxaan sameynayaa haddana qeybta kaloo cadaanka ahayd ayadana waxaan kasoo sameynayaa 2 kuus. may fahanteen? waa isku dhadhijinay. marka labana waa isku dhajinay, labana waa isku dhajinay, kan kalena dhexda uga dhajinay. ubuxuubu kusoo baxba kaala iska arag. haddana sidii oo kale marna waxaan sameynayaa qeybta chocolate kuga egaan 3 xaba ka dhigi oo qeybta cadaanka 2 xaba ka dhigi. marna
qaybta cadaanka 3 xabo ka dhigi qaybta chocolate-ka ah waxaan ka dhigi 2 xabo hadda kii hore qaybta chocolate-ka 3 xabo ee haddana qaybta cadaanka 3 labada kale oo qaxwiga ah maxaa la dhahayo 2 sidaan uu ku soo baxan ku dheer lagama sheekeyn karo ma sha Allah hadda waxaan sugaynaa intuu ovenka ka soo baxay kii kale asiga u gelino waa kana buskudkeena diyaar waaye lagama sheekeyn karo marka sidaan quruxda badan uu ku soo baxay ma sha Allah jileeca kaaga daran ku dheer wax kasto sidaas uu diyaar noogu yahay marka waxaan soo qaadanaynaa weelkii aan ku diyaarsan lahayn ama aan ku shuban lahayn halkaas uu noogu jiro meeshaana maxaa la dhahayo ku soo diyaarsanaya saxankaas inaan baneysto waxaan rabaa aan wax kale ku sameysto isla arki doona marka halkaan aan ku soo wada diyaarsaday gaduudka waxaan ku dhahay quruxda ma sha Allah halkaan asaga dhan ku soo shubanaya marka halkaan ku soo shubtaan gees isaga durjinaya saxankan soo dhaqanaya marka saxanka soo dhaqdo saliid yar aan ku soo shubay iga badad saliida laakiin dib ma lahan lama rabo inaad saliid aad uga badisid maadaama uu wixii aad qasatay uu leeyahay saliid meesha marka waxa igu soo diyaarsan cun markaan qasay ina soo duubin cafwan laakiin wax badan ma aha waa bur qiyaasta aad rabtid iyo saliid qiyaasta adiga rabtid aan hadda meesha waxaan ku soo isticmaalay koob iyo bar bari maxaa la dhahayo bur sonkorta waa soo shiidaysaa oo 1 koob iyo 1 koob oo saliid ah ku soo shubtay marka hadda waa kana sidaan soo kuskuusa isagana saxankan ku soo fidsanaya hadda kuuskiisa qafiif ka dhigid oo ka adkaanaya marka waxa la rabaa kuuskiisa xoogaa inaa yar buurtid oo yar kuus ah ka yar dhigid marka waa kana marba mid aan soo hagaajinayo waa isla arkeena ilaa iyo dhamaadka soo ku soo baxo hadda kii chocolate-ka iyo kii kale isku darina oven ku jiro marka saas uga soo bixinana kan kala soo gelinayna marka hadda waa kana waxaan inoo soo dhameynay wax yar noo haray meeshaas hal kala noo hara u maleynaa mise 2 kalo hal xabo kala noo haray markuu saan diyaar u noqdo maxaa sameynaynaa waxaa soo qaadanaynaa rinji yariis si aan calaamada iyo cunta lagu garto ugu sameyno dhibic yar ugu sameynaynaa meesha bahalka dhanba cunka dhanba waxa macnaha u yeelay waa calaamadaas yar oo gaduudan oo loo sameynayo haddii aan loo sameyn cun maba ahmiya waa kana hadda marka sidaan uu diyaar ku yahay ovenka soo gelinaynaa ma sha Allah alaabteen dhan ayagoo noo diyaar waa kuwana lagama sheekeyn karo kii kale 3 nooc 2 nooc isku dhijinayna waka ee cunkiina mar labaad waxa idin leeyahay ciid wanaagsan waxa rajeenaa inaan noqdo qofkii ugu horeeyo ciid wanaagsan idin dhaho marka waa isku soo nabad laaban doonaa biidnillah ciidiina ciid wanaagsan Allah ka dhigo oo farxad badan oo qurux badan marka fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye